waxa jira wax aynan ogeyn oo ku saabsan markabkii hubka siday oo ay Puntland qabsatay markabkan oo siday saanad military oo aad iyo aad u culus taas oo isugu jirta hubka noocyada fudud nooca waaweyn iyo gaadiidka gaashaaman ay ciidamada Puntland qabsadeen waxa uu socday markabkani Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka yimid dalka Turkiga waxa la sheegayaa hadda hubkii yaryara in ay la dageen dadkii shacabka ahaa hubka noocyadiisa kala duwan sida aakayaashii bastooladihi iyo hubkii yaryaraaba in la dagay oo dadkii shacabka uu gacanta u galay oo ay ciidamadii qabsaday u qaybinayaan dadkii deegaankaasi deganaa balse wali markabkii ay saaran yihiin hubkii waaweynaa ee gaadiidka lahaa sida laga arkayo muuqaal qof markabka kor fuulay oo soo duubay waana muuqaalkan xageed hadaba maxaanan ogeyn eedaha gadaashiisa ka socda dawladda Turkigu lugmiyay ku leedahay dhacdadan dawladda federaalku lugmiyay ku leedahay aan barbar dhigno dhacdadan dhacdooyinkii la midka ahaa ee ku horeeyay waxaan xasuusanaa hub laga keenay Ethiopia kaas oo gudaha dalka la soo gelinayay in uu dad shacab ah gacanta u galay hubkaasi marka uu dadka shacabka gacanta u galayay maalinkii la soo rarayay oo Ethiopia laga soo rarayay waxa jiray dad la socday arintaas oo ogaa step kasta iyo tuulo kasta iyo kilometer walba ay soo socdaan gawaaridaasi waxa jiray dad isha ku hayay oo ogaa markii xuduud beenaadka uu sidaas uga soo gudbayna dadkii shacabka ahaa ee deegaankaasi deganaa ayaa loo sheegay in gawaaridaas uu hubsaaran yahay kadibna ay la dagaan arintuna sidaas ayay ku dhacday cid lahaydba ilaa hadda hubkaas cid sheegatay ma jirto dawladda ma sheegan qof shakhsiya ma sheegan maamul goboleed ma sheegan hubkaas waa la dagay taasi waxa ay ahayd ogaal la ogaa meesha uu ka yimid hubkan iyo meesha uu u socday iyo meesha uu marayay ribood la siinayay dadkaasi deegaanka ayaa jiray taa anagu la barbar dhigayna marka Turkiga iyo dawladda federaalku iyaga oo og in badda cas marinkan uu soo mari doono markabkan ay tahay goob furin ah marka laga yimaado iyadoo laga didsanayn ciidamada Puntland wayba dhacday halkaasi waa marin furin ah oo cabsi ah marin looga baqo burcad badeed looga baqo shabaab looga baqo xuuti looga baqo ururo kale oo aan la aqoon isagoo marinkaasi yahay marin noocaas in dawladda Turkiga iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay markab saanad iyo hub wada kaligii soo diraan ilaala la'aan ay soo diraan kadibna ay badan ku soo fasaxaan fiisay horta halkaas buu waxba ku jira kaaga daran markab hubsida in dooma yaryar ay ku dhiiradaan in ay la wareegaan oo ay dhacaan iyadana waxba ku jira yaa u sheegay maadaama markabkan uu hubsido yaa yiri markabkan waa la qaban karaa ma saarna cid qof ciidana ma saarna markabkan wax iska caabina ma lahan ila markabku hubba ku